bangiga dowladda Puntland oo la aasaasay sanadkii 1998 ayaa ah hay'adda ugu sarreysa ee maamusha maaliyadda Puntland waana khasnadda dakhliga dowladda uu ku xaroodo. wuxuu maareeyaa bixinta mushaaraadka ciidamada, shaqaalaha iyo kharashaadka howlgallada hay'adaha kala duwan ee dowladda. waaxda cilmi baarista iyo tirkoobka ee bangiga ayaa soo saartay daraasad qiimeynaysa nuglaanta iyo adkeysiga dhaqaale ee Puntland. Reportkan wuxuu ku salaysan yahay arrimihii economic shocks oo ka dhacay mandaqada Puntland 3 sano la soo dhaafay. warbixintan cusub ee ka soo baxday waaxda tirkoobka cilmi baarista ee bangiga dowladda Puntland ayaa iftiiminaysa xaalad dhaqaale oo adag oo ay sababeen 4 caqabadood oo isbiirsaday. Marka Hormuz argagixisada ku soo duushay Puntland, abaaraha soo noqnoqday, sidoo kale muxuu ahaa iyo fundskii grantskii badana ka imaanaya dibadaha oo ama qaarkood la jaray ama la yareeyay. ugu horeyn dagaalka fallaagada Daesh ayaa saameyn ba'an ku yeeshay ganacsiga Puntland. 85% ganacsatada la wareystay waxay sheegeen in weerarada iyo lacagaha sharci darrada ee ka jiray gobolka Bari iyo gaar ahaan Boosaaso ay kor u qaadeen kharashyadii ganacsiga, halka 93% ay xaqiijiyeen in amni darradu ay si dhab ah u niyad jabisay maalgashigii cusbaa. Dowladdu waxay uga jawaabtay inay essential billskeedii ay ku dadaasho inay bixiso dhammaantood, inay jidad dhisto, inay bangiga horumarinta ku dhawaaqdo, inay Puntland Development Fund samaysato oo iska kaashanayaan dowladda iyo shacabkeedu. duulaankii military ee dowladda Puntland ku qaaday Daesh wuxuu dowladda ku qasbay in hanti badan oo horumarinta lagu kicin lahaa loo weeciyo xaqiijinta amniga. xaaladaha sidaan oo kala markay ku dhacaan wadamo waaweyn oo dhaqaalaha haysta, dhacweyn oo xagga dhaqaalaha baa gaara. laakiin anagoo saameyntaas waaweyn oo 4 area ah ay nagu dhacday still waxay dowladdii samaynaysaa horumarin xagga dhaqaalaha ah. marka toos loo eego abaaraha soo noqnoqda waxay lafdhabarta dhaqaalaha Puntland oo ah xoolaha nool ku keentay biyo yari, dhimasho xoolo, barakac iyo ku dhawaad 2 milyan oo qof ay haleesho sugnaan cunto darro oo degdega. tani waxay sidoo kale dowladda ku qasabtay in dhaqaalihii horumarinta u leexiso ka jawaab celinta xaaladan. abaaraha soo noqnoqda saameynaha ka dhashay waxaa ka mid ah xoolaha iyo wax soo saarkii beeraha oo yaraaday, xoolihii iyo wax la yiraahdo meesha ka baxay, taasoo keentay inay reer miyigu ka haajiraan oo meel kale u guuraan oo ay ku bataan kharashaadka safarada. sidoo kale hoos u dhaca taageerada dibadda, gaar ahaan xanibaadda dhaqaale ee gargaarka Mareykanka iyo deeq bixiyaasha kale ayaa god madow ku riixay adeegyada dadweynaha. yareynta gargaarka ama deeqihii banaanku markay yaraadeen, waxyaalaha ay sababtay waxaa ka mid ah adeegyo badan oo istaagay sida adeegyada caafimaadka, biyaha, mashaariicda horumarinta, taasoo sii kordhisay nuglaanshaha bulshada. daraasadan oo ay diyaarisay waaxda tirkoobka ee cilmi baarista ee bangiga dowladda Puntland waxay gunaanadkeedii soo jeedisay talooyin istiraatiiji ah. talooyinka cilmi baaristani ay soo saarayso oo ka mid ah in la xoojiyo amniga si loo dhiirigeliyo maalgashiga, in la kobciyo ilaha dakhliga ee gudaha kor loo qaado, in la xoojiyo iskaashiga dowladda iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay iyo hay'adaha caalamiga, in la dhiso sanduuqa horumarinta Puntland oo la sameeyo, in la dhiso ama la adkeeyo adkeysiga dhaqaalaha economic resilience. dhammaantiin waan salaamayaa, waxaan rajaynayaa inaad reportkan akhrisataan, dhuuxdaan, talooyinkiinana nala soo wadaagtaan. mahadsanidin.